kulanti wacan oo wanaagsan daawadeelada haddii meel walba joogtaan waxaad leenahay ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo ee markaasi aan ku faaqideyno sportiga ama ciyaaraha taba kulamadii xalay la ciyaaray natiijooyinkii laga gaaray iyo kuwa caawa la ciyaari doono ayaa markaasi barnaamijkeena ku faaqidi doona hadduu eeba subxaanahu wa tacaala yiraahdo fadlan haddii aad ku cusub tahay page-keena follow inoo dheh sii share gareey oo gaarsii meel dheer videogeena si markaasi asxaabtaada ama ay qayb kaga noqdaan daawashada kuwa daawadaha barnaamijkeena like-ta iyo commentigana waa dhankiina fadlan aad baad mahadsan tahay saaxiibayaal aanu ku bilaabo qodobka ugu horeeyo maxaa laga yeeray guushii xalay ee markaasi kooxda Arsenal ay ka gaartay kooxda Atletico Madrid haddaba Atletico Madrid tababarahooda Simoni ayaa waxa uu sheegay kooxda Arsenal inay tahay koox aad iyo aad u adag iminkan looga cabsanaya inay ku guuleysato Premier League iyo waliba sidoo kale UEFA Champions League sanadkiisa socdo haddaba waxa uu sheegay wiligay iguma aysan dhicin ayuu yiri inta aan anigu ciyaar aan hogaaminayay ama kooxda Atletico Madrid aan hogaaminayay inay markaasi ay dhacdo in 13 daqiiqo gudahooda 4 gool lagaga dhaliyo waa sida uu sheegay tababare Diego Simeone oo tababar u ahaa kooxda Atletico Madrid haddaba tababarahan ayaa waxay ka dhigan tahay in uu markaasi maadaama uu Arsenal la kulmayay ay qaybna ka sii ahayd sidoo kale tartankaasi directorkiisii hore ciyaartoyda u soo gadi jiray Andre Perta in markaasi oo qayb ka ahaa ciyaartoydii oo soo gaday kooxda Arsenal markuu ku soo biiray ciyaartoydii oo u soo gaday in ay qayb ka ahaayeen ciyaartoyda burburisay difaaciisa iyo waliba qadkiisa dhexe ciyaartoydaasi oo ay ka mid yihiin Ize Subamendi iyo waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Victor Gyökeres iyo dhowr ciyaartoy oo ay ka mid yihiin Norgard iyo ciyaartoy kale oo ay markaasi ciyaarayeen xalay inkastoo inta badan ciyaartoydu ay dheelin laakiin se xalay qayb ka mid ah ayaa dheelay oo ay ka mid yihiin saddexdaas ciyaartoy oo ay markaasi si weyn ay kooxdaasi dhaxda iyo afka horeba ugu qabteen haddaba waxay markaasi noqotay in Andre Berto oo ahaa directorka kaliya suuqa sida fiican ugu soo iibsado ciyaartoyda oo markaas u baahan yahay waxtarkana leh waxna ku soo kordhin kara kooxda haddaba Andre Berto markuu yimid kooxda Arsenal maxaa ay tahay farqiga u dhaxeeya waqtigii hore iyo hadeertan waa sababta Andre Berto markaasi uu yahay directorka ugu mudan in markaasi ciyaartoyda oo u soo iibiya kooxda Arsenal waa sababtoo waxa ay tahay waxa uu soo iibiyay ciyaartoy quality u leh kooxda ciyaartoy haddii ciyaartoydii hore ee kooxda dheelaysay ay markay dhaawacmaan markii lagu bedelaba aan laga dareemaynin tusaale ahaan markii Bukayo Saka uu dhaawacmo Nuno Mendes ayaa markaas waxa lagu bedelay Maduko adehe ayaa lagu bedelayay Maduko hadii lagu bedelo waa uu markaasi fursad fiican ay u abuurayay baalkaas ama dhinaca garabka uu ka dheelayna aad bay u adkeyd in laga soo galo aad bay u adkeyd in markaasi ayagu naftirkooda ciyaartoyda ka soo horjeeda Arsenal difaacidaas ay celiyaan soo socdo dishota ayuu dhaxda ka soo galay jaanisyo badan ayuu abuurayay sidoo kale Martinelli iyo waliba nick la yiraahdo Trossard hadii markaasi jaanisadooda waxa lagu la cariirinayay nick la yiraahdo Ize oo markaas hadii ay ayagu xaqooda xataa culayska yimaado Ize ayaa markaasi joogay oo dheelayay tusaale ahaan hadeertan waxa naga dhaawacmay kooxda Arsenal ciyaaryahanka Odegaard marka waxa bedelay marka nick la yiraahdo Ize ayaa booskiisa marka buuxiyay taasina waxay markaasi cadeyn u tahay in kooxda quality ay u tahay marka hadii William Saliba oo dhaawacmo Mosquero ayaa joogo hadii Gabriel Magalhaes oo dhaawacmo isla Mosquero ama ciyaartoy kale ayaa markaasi booskaas buuxinaysa oo sidoo kale handicap ayaa jooga aad bay marka u fududahay Timber waxa uu fadhiyay nick la yiraahdo Ben White Lewis Skelly California joogo ciyaartoy aad u fara badan joogto kooxda hadii Raya sidoo kale wax soo gaaraan Asqueleta joogo oo ciyaartoyga laga soo qaaday kooxda Chelsea marna qaaliga oo ahaa dunida haddana markaasi kooxda Arsenal jooga oo asigana markaasi fursado badan ay u tahay kooxda labada kooxba kooxda labada dhinacba marka aad baa maasintay asxaabteyda sidoo kale inta kulamada caawil ciyaarayaan waxa kamid ah kooxda Liverpool xaaladdu ku xun tahay oo Frankfurt ay la ciyaari doonto caawa waliba Frankfurt ay markaasi marti u tahay
oo Jarmal ay aadaysaa kooxda Liverpool wayna adag tahay saadaalintu markii la qiimeeyo qaabka iyo formka ay ku jirto Liverpool caawa waxaad moodaa in laga badin karo oo meeshaas ama wax dhibac ay kala soo hooyanaynin sidoo kale inta Chelsea iyo Ajax ayaa isku dhacaya iyagana waxa sidoo kale isku dhacaya Monaco oo markaasi martigelinaysa kooxda Tottenham Chelsea waxay martigelinaysaa Ajax oo gurigeeda Stamford Bridge lagu imaana sidoo kale inta Juventus ayaa iyaduna waxay marti u noqon doonto kooxda Real Madrid Real iyo Juventus isku dhacaya ciyaaro aad u adag waay waa ciyaaro inaba aan caadi ahayn oo markaasi natiijooyin aad u adag sidoo kale xalay waxa ciyaaray Barcelona oo badisay sidoo kale waxa soo badiyay Arsenal Manchester City badisay waxa soo badisay kooxda Newcastle PSG way badisay kooxo aad fara badan ayaa soo wada badiyay Inter Milan badisay waxa la yiraahdaa PSV Eindhoven oo si xun u xasuuqday kooxda Napoli oo maalmahan xalkeedu aad u sahal yahay xaaladu waxaad moodaa markaa siyaabo kale Borussia Dortmund ayaa iyaduna sidoo kale badisay oo 4-2 ku badisay marka kulamadaas iyo kulamadii kale inta la ciyaaray waxay ahaayeen kuwa markaasi natiijooyin u ahaa kooxaha waaweyn ee markaasi ku tartamaya UEFA Champions League sanadkan natiijooyinkaasna marka waxay noqon karaan kooxaha kuwa wax all sababtoo hadii aad kulamadaada ugu horeysa badiso waxay markaasi wax weyn ka noqon karaan ama wax ka bedeli karaan kulamadaada dambe marka sababtoo marka haysato natiijooyin fiican ama dhibco fiican aad haysato kulamada dambe waxaad raadinaysaa badis ama waxaad raadinaysaa bareejo waxa waaye wax culeys markaas kuma keenayso aad badan ma santina asxaabteeda qiimaha qaayaha inaga mudan hadii aad nala soo gaarteen ilaa dhabaadka barnaamijkeena fadlan waxaan ka codsanayaa inaad like-ta iyo commentiga inoo saartaan oo sidoo kale into follow inoo dhahdaan page-ka hadii aad ku cusub tahay follow ii dheh page-ka fadlan waxa kaga codsanayaa 10,000 wax yar baa igaaga dhiman fadlan igaarsiiya 10,000 sidoo kale hadii hore nala joogteen si share gareysay asxaab fara badan oo adigu kugu xiran ay u gaaraan barnaamijkeena videogana muuqaal meel dheer muuqaalkiisu u gaaro aad baa mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wasaaxiibkiin maxamed abu korbaari oo idin leh galab wanaagsan tani inta dib ugu kulmi doona barnaamijkeena xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh